xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya oo kaashanaya xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa koorso maalintii koowaad magaalada caasimadda Muqdisho ugu qabtay macallimiinta heerarka kala duwan ee Soomaaliya kuwaas oo qaarkood ka yimaaday Puntland, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland waxaana furitaanka ka soo qayb galay madaxda xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya iyo Eric Matthews oo ahaa FIFA instructor xogayaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Yusuf ayaa ugu horeen ka hadlay wuxuuna sidoo kale u mahad celiyay xiriirka kubadda cagta ee FIFA wuxuuna sheegay inay ka faa'iideysan doonaan macallimiinta markaasi loo qabtay koorsadan oo maalintii koowaad ay u tahay taakay madaxda xiriirka Soomaaliya kubadda cagta halkan fadhido inaan maalintii ugu horeysay koorskeena oo noo qombaraayo aan furi doono koorska grassroots-ka noo xigi doonaan soo sheegay madax farsamada koorso kale oo isla Matthew noo bixin doono insha Allah waqti qaadatay runtii soo caawil sheegaba inaan ku guuleysano inaan koorsooyinkan qabanno iyadoo jirtay marxaladii coronavirus-ka koorsooyin badan hore nooga baaqdeenba insha Allah xiriirka Soomaaliya kubadda cagta wuxuu ku dadaali doonaa inta dhimanba sanadka iyo sanadada xigtaba inaan koorsooyinkan iyo kuwa ka duwan insha Allah aan qabanno ilaa iyo levelada B iyo C macallimiinta halkan joogtay jaaniska iyo fursad u heshay maanta inay koorskan ka qayb qaataan waxaan runtii kula dardaarmayaa fursadda ay hesheen kuwa badan waayay waxaan rajeynayaa waxa aan meeshan ka baratiin insha Allah inaad dalka gelisiin oo aad soo saartiin ciyaartooy sida dareemaysiin waxaa dadka fadhiya meesha dhowr meel ka kala imaadeen gobolada iskuulada dad kooxo ka imaaday kooxaha biida qaar hogaaminaya marka waxaa la iska rabo waxay tahay ujeedadii halkan ila keenay oo ah inaad kooxka ka qayb qaadataan inaad ka miro dhalisaan ka gaartiin waxba adiga aad gelisid waqti iyo juhdi ayaad runtii maaragtay ka gaari kartaa guul madaxda xiriirka Soomaaliya kubadda cagta way joogtaa iyadana insha Allah kalaamkooda dhigi doona waxaan sidoo kale u mahad celinayaa qaybta farsamada caawin oo asagana runtii juhdi badan geliyay qabsoomidda iyo helitaanka koorsooyinkan asaga iyo macallimiinta farsamada ugdambeyn waxaan u mahad celinayaa Mr. Eric Matthew. Thank you for being here in Somalia for the first time. It's my first time to be here with you together in this course. Intii idinkana maaragtay farsamada dhan waxaan leeyahay guul idin rajeynaya sidoo kale waxaan u mahad celinayaa hay'adda FIFA oo iyadana maaragtay waqti runtii adag koorsooyinkan noo ogolaatay iyadoo coronavirus ka jira sidoo kale dhammaan naga kaalmaysa dhinaca farsamooyinkooda oo mahad celinayna gudoomiyaha FIFA waxaan runtii dhammaantiin idinkugu dardaarmayaa guul iyo Soomaaliya insha Allah guul noqota dhanka kale Cabdiqani Saciid Carab gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa macallimiinta ka qayb galaya koorsadan kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan soona saaraan ciyaartooy wax badan sidoo kale u tari karta xulka qaranka dalkeena Soomaaliya sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in koorsadan ay muhiim u tahay macallimiinta sidoo kale ka qayb galaya asagoona sidoo kale u mahad celiyay Matthews oo ahaa isku duwaha marka la fiiriyo koorsadan wuxuuna sheegay in xiriirka kubadda cagta Soomaaliya uu diyaar u yahay in macallimiinta ciyaartooyda markaasi ay u qabtaan koorsooyin kala duwan oo ay markaasi ka faa'iideysan doonaan anoo ku hadlayo magaca xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay'adda FIFA oo ugu horeeyo gudoomiyaha FIFA Mr. Gianni Infantino oo runtii aan ugu mahad celinayo sida xafiiska u yimid programmada horumarka uu wado uu gaarsiinayo wadamada oo dhan gaar ahaan wadamada Afrika anaga ka midnahay FIFA ugu mahad celinayna filosofiga ay wax ku horumarinayaan kubadda cagta Soomaaliyana waxay noo tahay qayb aad muhiim ah maadaama aan ku jirno wadamada soo koraya una baahan inay aqoontii kubadda cagta helaan sidoo kale waxaan rabaa inaan mahad celintaas la mid ah aan u mahad celiyo saaxiibkeena Eric Matthews oo ah FIFA instructor sidoo kalena ka mid ah instructorada ugu muhiimsan uguna way aragsan Afrika